ku soo dhawaada dadka ku xidhan channelka ama kanaalka Xogogaal. Assalaamu calaykum waraxmatullah. Dalka Suudaan wuxuu ka mid yahay dalalka ugu muhiimsan dalalka qaaradda. Caasimadiisu waa Khartoum. Afka rasmiga ah waa afka Carabiga. Nidaam maamuleedka waa nidaam jamhuuri ah. Dalka Suudaan wuxuu xornimadiisii ka qaatay guumeystihii ee Ingiriiska iyo dowladaha ay dariska yihiin ee Masar sanadkii 1956. miilaadiyada dalweynaha Suudaan wuxuu ku fadhiyaa masaaxo uleed dhan 900 oo kiiloomitir laba jibaaran. lacagta waddanku waa janiyaha Suudaaniga. dalka Suudaan waxaa daris la ah dalka South Africa oo bari aan fogeyn ay isku ahaayeen waddan qura. Suudaan waxay wadaag yihiin dalalka Eritrea, Ethiopia, Masar, Liibiya, Chad iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. dalka Suudaan wuxuu ka mid yahay wadamada ugu qaaradda ka maro webiga lagu xanto inuu jannada ka soo burqaday ee Niilka, waxaana aan ka fogeyn magaalada Khartoum ku kulma Niilka Cad iyo Niilka Buluuga, halkaas oo ka samaysmo Niilka Weyn. shacabka reer Suudaan boqolkiiba 96 waa dad Muslim ah. dadka reer Suudaan waxaa lagu sheegaa in ay yihiin Carab iyo Madow isku milmay, ayada oo ay jiraan aan badanayn oo asalkooduna ka soo jeedo Turki, Masriyiin, Liibiyiin, Eritreyiin, Hindi iyo Etoobiyaan. tirada shacabka reer Suudaan waxaa lagu sheegaa 38 milyuun, taas oo ka dhigan in uu yahay waddanka 35aad ee ugu dadka badan dunida iyo waddanka 9aad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. reer Suudaan marka laga soo tago luqadda Carabiga waxa kale oo jira ilaa 300 oo afaf oo maxalli ah. isha ugu weyn ee dhaqaalo ee dalka Suudaan leeyahay waa saliid. sidoo kale waxay dhaqaalo ka sameeyeen shamiitada, sonkorta, kabaha, batroolka iyo xoolaha. haddii aanu eegno reer Suudaan aad ayay u jecel yihiin, waxaana ku yaala jaamacado caan ah oo looga yimaado gudaha dalka iyo daafaha caalamka. jaamacadaha dalka ugu caansan waxaa ka mid ah jaamacadda caaliga ee Afrika oo ay ka soo baxeen aqoon-yahano badan oo Soomaaliyeed. arday badan oo Soomaaliyeedna ay dhigtaan. Suudaan waxay ka mid tahay ama kaalinta koobaad ugu jirtaa ardayda Soomaaliyeed ay ka helaan deeqaha waxbarasho. daawade haddii aad wax ka faa'iiday like saar, subscribe saar, oo nagu soo biir